سؤال مهم waxay tahay inaad ogaataan gabadha muslimadda ah ماذا كانت قبل الإسلام وماذا أصبحت بعد الإسلام وما هو دورها في هذه الحياة إسلام كأنتونا إيمان كهر نبي محمد إلهي صادرين أدونك قبل واتشوغين دمر باتشوغي هو يوينا المله قبل يرير أيغو أهنا واتشوغين أيغو واوين واتشوغين وحيكون نولايين حالة حن أو حن بيكون نولايين حالة دا حن أو يكون نولايين كو وحيكب اللابنيسي يكره ولادتها دالمدي دا بلا نعهي inay gabari dhalato oo adduunka ku soo biirto ayaa la nici jiray oo la nimca hadii marka ay dhalato ilaahay baa abuuray oo keenay Soomaa see loola dhaqmi jiray laba xaalay yeeli jiray ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab والدكي gabadha dhalay laba xaala mid baa u furan hadii adduunyada gabari ay ku soo biirtay ma wuxuu ku haystaa ayadoo dulaysan oo nolosha aan waxba ku lahayn oo ihaana iyo dulli ku sugan asaguna ku ceebaysan yahay miyuu ku haystaa مسعرضو كدوغا ايادو نول اسagoo naftiisa kala cararaya ceeb iyo caardu ka soo gaaro ilaahay quraanka wuxuu ku sheegay hadii loogu bishaareeyo gabar baa ku dhalatay walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib wajigiisi waa isbedelaya caarana way buuxinaysa hadii meesha loogu sheegay rag uu la fadhiyo عيب يا عار درتيد بكدي عرض يا رجل قولي كده ما وقع عرضي مركز سوقان وحكو جاريا أيضا نول أو قبل دي سيلهاي كسوقوية إنه دلو دوغو وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ويكحين ترين تلول لبسوا الله كحيا قد كلو حوالي يا سقو قضيه ciidda uu firdhinahay dhabarkiisa ka tiraysa mana oga inay tahay godkan ayada in loo qodahayo markaas saa ugu tuurahay aabow ayadoo loo faraqa ku dhagan buu saa iskaga goynay markaas uu ciidda ku xabaalay haddaan quraanku inoo sheegi lahayn oo ilaahay inoo sheegi lahayn maba aana rumaysaneen gabar nool baa aabaheed oo arkaya duugay maba aana rumaysaneen Soomaa لكن إلهي بالقرآن كإنه وشيء قبله هير كإنه صامره هذا كبد بعد الدل أو أي نولاته وحيكون ناشة في الذلة والمهانة دل يا مهانة يكون ناشة نرشة وحبكم عليه ليس لها حظ في الميراث dhaxalka markii la gaaro aabaheed uu dhinto haduu guriyo badan iyo xoolo badan ka tagay hal shay kuma leh xaaja kasta iyo fakhri kasta iyo baahi kasta hayso nidaamka shaqeynaya waagaas buu ahaa markaas xoolihii aabaheed horteeda lagu qaybsanaya hal wiil haduu ka tagay halka wiil baa qaadanaya 10 gabdhood haduu ka tagay 10 kuwa waa qadaya gacmuhu waa isku saareen كما هل كران بل هي موروثة انت اسكريه معها waxay ahayd gabadhu mid la dhaxlo oo ninkeeda laga dhaxlo sida ninka looga dhaxlo xoolaha uu ka dhintay oo mataacda iyo alaabtu ka dhintay sida looga dhaxlo ayada laftii loo dhaxli jiray oo hadduu ninkaani qabayn dhowr naagood oo uu dhinto
gabadhan uu qabay oo ilmaha lahayd ma madax banaana meesha rabtana iskama aadi karto waxa dhaxlaya ninka dhintay dhaxalkiisa dadkii lahaaba dhaxlay ariga iyo geela la boorimaynayo la qaybsanaya ayadana lagu darahayo waa dhaxal isma naqaaji karto ayada la dhaxlay xoolihii aabihna way ka qad waxay ahaayeen mujtamacaad ka jiray jaahiliyada hal nin baa waxa ku hoos noolaa 10 iyo ka badan dumar ah intuu raba ayuu guursanaya ayagoo ku nool nolosha midda ugu dambayso ciriiri ah oo wax xuquuq aan lahayn ayuu 10 15 20 ayuu qabaa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam saxaabadii rumaysay qaar kamid ah ayagoo 10 wata yimaadeen markaas nabigu yiri afar ka dooro sida inta kale shaqo kuma liid balu fiirso mudaayaqaadka iyo ciriiriga iyo dhibka ay dareemayso 10 iyo 15 baa la qabaa kulligoodna waa dhaxal haduu dhinto qaraabadiisa dhaxlaysa ولذلك ابو عمر بن الخطاب وحو يري والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا إلهي بان كل دارتي حلقي قال هذا أنا أهين هوينك وح قيمة وما أن ننتري تري ما أنا الهين حلقي قال هذا أنا أهين هل قيمة أمين الهين بير حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم إلهي سودة شيء حق إليهين قرآن كور رمية أنا قيبية إلهي وحي قيبية وحق ده إلهي من الصعب وحتلا يوح مامولا من الله مجتمعات كقار كود ولا جوبي شري قبرنا هذي قبر عدة كوسو قررته ضب على قبل سجر وحكي لسكده مجتمعات كقار كودنا انت اللي دوفيو الله كحيو السوقيده اللي جيو ayay iska iibin jireen qofkii ari raacsanahay iyo qofkii beera ku falanahay iyo qofkii wadanahay oo mataqaan adoon ka dhiganahay waa beec bay dhigi jireen saasay u kala duwanaa mujtamacaadku sidaas ayaa loo cadaabi jiray gabdhaha islaamku markuu yimid oo nabiyullaahi muhammad ilaahay soo saaray dulmigi dul saarna waa laga rigo makaanada iyo sharafta ay leedahayna ilaahay baa quraan ku soo dejiyay xaqeedii baa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka ku siiyay markaas waxa ilaahay uu ka dhigay shariikata rajul fi الثواب والعقاب وسائر الحقوق إلا ما خص الله بهن mid ragga la qaybsata oo la wadaagta haday tahay xasanaadka iyo ajarka haday tahay ciqaabta haday tahay xuquuqda dhamaanteed illa waxyaalihi goonida ah oo si gooniya ilaahay iyaga u siiyay maahan markaas quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah qofkii sameeya amal saaliha rag iyo dumar ku doon ha ahad waxa uu leeyahay xayaato iyo nolol wanaagsan fastajaba lahum rabbuhum anni la udii'u 'amala 'amil minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd marnaba ilaahay wuxuu ajiibay inuu dayacahayn qof amal falay amalkiisa min dhakarin aw untha gabar iyo wiil ku doon ha ahad حقيدي ميل بالوصار رجينا والله شيء أيجينا والله شيء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات رجع مسلمين تا قبلها مسلمات قبلها مؤولش مؤمنين تا قبلها مؤمنات كوا الصومة رجع الصومة قبلها الصومة كوا صدقين تا كوا صدقيستا قبلية ويل الوالد تح قبلني مركي ويل كل شيء قبلنا والله شيء حقوق وحال سعليه وين او وين او وين عباده السدو عباديست عباديست قرانكو برن وي برن علمي برن وي برن صلاه بدن بو تكن وي تكن صوم بدن بو سومي وي سومي
صدقوا لبحن ويلبحن حجكوا آدن ويآدن ثوابتي يا أجرك يا حسناتك أيضا والله فرق سجنا والله فرق هوانتي وحا كلا لو سعلي ماشي أي أهيد إلا نحله أو متاع يا ألعاب أهان لو إلا حله والله حرم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلهي باير إذا ما بنانا مؤمنين إن الضمر كده حشان ما إذن بنانا إسكده إن لا دحله إلهي وحو كدغاي مid ayadu wax dhaxlaysa xoolaha aabaheed ama walaalkeed ama qaraabadeeda dhaxal ilaahay ka siiyay inaan la dulmin karin lirrijali nasiibu mimma taraka alwalidani walaqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر هيا هذا هبطناضو ويلكو قيب لي رجو قيب لي دحلك وحي قرابته أي كتجين قبلها إلهي بقى أشياء ويلي زوج كذي بيدحلي أبيهد بيدحلي المهيد الشيء بيدحلي قرابته إذا كلا هدي عدك حكتاي تري بيدحلي حقي دحلك وحا لقى دقا مدي أيضا الدحلي وحا إلهي كدقاي مدى أيضا وحا دحليس إلهي وحو كرامي سبحانه وتعالى قبضنا مسلمات دعا مركا أيرتهي أو صقيرتهي أي الله ماموس قول إلهي مركا سنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبل وضغفك كفالة قاضة أو تربيه ذا هجاتيا كنا له سترا من النار وحي أقول نقول يا نار تحجاب أقول نقول يا صدق قفك كفالة قاضة لما قفك كفالة قاضة هل قفك كفالة قاضة وحو استاجي تربيه ذا يا أخلاق ذا يا مسؤولية ذا مركز وحى الله ضمانة قاضي أو الله سينا يا ما دام جبر وحق إلى لي أو شرفي أو قيمي أو تربيي إن الحجاب أقول نقضى النار بل فيري نار الحجاب أقول نقضى هم مركز يرتاح مركز نقطة جبر إننا أو عقل جدي يجور جارتي إسلام كوه أو إلى لي إن جور كذا اللي هجاتيو أوقف أخلاق دي سيد دين تي سلجر رالي هاي لسيو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قبل دي وحى لي أبا مسؤول كأ ولا أبا مسؤول كأ أو مسؤول كأ صماها يا سينيسا هذي كوي مادام كوا أخلاق دو يدين تو دا أي كرالي جلس أو أكوكنا عديد أقولي قبل ده حلو إلى يقبل مركب وحلو إلى إن الله دور جور مركب جارتو نين أخلاق له الدين له ظروفتي صدق على واحد دونتها ولو إلى مركب هو ينقطي أنت إن هو ينقط ننكر جوري مركب تكتي أو جوري هو يد أي كسب بحري أيا ننكي وحال صار واجبات أي قبل أنا كل هذا biilkii cuno iyo cabitaan asaga dusha laga saaro guriga ay degi lahayd asaga mas'uuliyadiisa la saaro wixii ay xiran lahayd asaga la saaro xuquuqdeedii oo dhameystiran maadaama awal hooyo aabi iyo mas'uul ay ka ahaayeen zawjkii ay ku wareegtay baa mas'uuliyadii loo saaro shala haday aabba ka qaadanaysa maanta zawjkeeda ka qaado markii ay ilaahay awlaad uu siiyay ayaa hooyo ahaan loo ixtiraam markaasa nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa ilaahay ku soo dajiyay qur'aan ka hadlaya labada waalid وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لبدي والد إلى لبالي ساس على الأمر لبدي والد حقوق دودي ووحى لقصة دشيء ولا قال هذا يا علمه مركز هو يدي سجونئة وحال الدراسية حقوق صدح شر أبيه كهرس أيالسي
yaa kuugu xaq badan dadka hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabaha cadawgii islaamkuna maxay ahaayeen ayadoo nool bay duugahayeen haddana waxaa laga saramariyey labadii waalid hooyadii baa xuquuqdeeda la badiyey waa markay hooyo noqota kasaa lagu ogaaday markay doqowday oo shayb noqotay ayaa si gooniya qur'aanku uga dardaarmay imaa yablughanna cindaka alkibara axaduhuma aw kilahuma falaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma waqul lahuma qawla kariima sida looga dardaarmo fiil markaasaa ilaahay wuxuu amray hadday doqoobaan labadii waalid waxa weeyaan ka ilaali kelimad xun saxaradii baa ka qaadaysaa waa u qubaynaysaa waa dhaqaysaa wixii wasakhoodii baa dhibsanaysaa iska ilaali kelimad uf inaad tidhaahdo oo waxa saxarada aad ka qaadaysay aad u muujisay inaad dhibsanaysid ha guulguulin ka ilaali waa markay shaybabka yihiin hadday adduunyada ka tageen ayaa laga sii dardaarmay waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaahow u naxariiso labadaydii waalid sida ii barbaariyeen anoo yar ayagoo noolna ugu ducee ayagoo dhintana ugu ducee rabbi ighfir lii waliwaalidaya naftaada markaa u ducaysid waalidkiiaa ku xijis hooyadii marka waxaad arkaysaa in laga bilaabay markay dhalatay gabar markay noqotay loo guuriyey awlaad yeelatay awlaaddii lala dardaarmay doqowday si gooniya qur-aanka oga hadlay dhimatay la maamuusay oo xuquuqdeedii loo ilaaliyo xaggee laga heli karaa taas aan islaamka ahayn meel aan diinta islaamka ahayn laga heli maayo halkaa markay joogto gabadhii muslimadda ahayd waxaa laga ilaaliyey wax alla wixii akhlaaqdeeda dilaya oo sumcaddeeda dilaya oo ka dhigahaya badeecaddii waagii ganacsiga gaaladu ay u yaqaaneen iyo ihaanadooda iyo fisqigooda iyo xumaantooda ayaa laga ilaaliyay markaasaa waxaa laga xarimay wax alla wixii sumcaddeeda iyo sharafteeda wax u dhimahayo waxaa laga xarimay alikhtilaaq inay rag iyo dumar isdhex qaadaan lianna hada yuhiiru shahwa shahwadu arrinkaasi kicinaya hadhowtana xumaan baa ka imaanaysa cirdigeedii iyo sharafteedii baa dhibaato loo geysan karaa isku daran baaba laga ilaaliyaba nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam gabdhuhu dariiqa dhinaca ka mareen dhexda ha marinina geesaha ka mara maxaa la kala soocaya raggii iyo dumarkii baa la kala soocaya waxaa laga ilaaliyoo loo diiday gabar keligeed guri in loo galo iyaakum waddukhuula cala annisaa iska ilaali inaa u gashaan maxaa yeelay shahwadaa kacaysa haddii labadooda keliya ay noqdaan wax aan la mahdin oo ammaan ahayn baana ka imaanaya xumaana sumcaddeedana arrinkaa wax u dhibaya hadhowto waa loo diiday waxaa laga ilaaliya laba inay khaali isla noqdaan laa yakhluwanna rajulun bimra'a nin yuunan gabar la khaali noqon waxaa la laabay indhahoodii oo laga ilaaliya inay fiiriyaan ajaanibta maxaa yeelay waxaa la diidayaa wixii shahwo kicin karo dhan baa la diriraya jirkeedii baa xijaab lagu soo dejiyey oo qur'aan ilaahay u soo dejiyey aayado xijaabkii ka hadlaya oo la asturay si aan ninba u hawaysanba aynan dariiqa ugu ordi jirkeedii waa lagaa qariyaba ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii gabadhii ay safrayso safar dheer sharcigii wuxuu u jideeyey in maxram uu raaco ayaa loo jideeyey waxaa loo ilaaliyey cidda u shaqaynayso mas-uulka ka ah ninkii baa laga dhigay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa mas-uuliyaddii ayagaa la saar asagii baa tegahaya asagii baa dhididahaya asagii baa soconahaya asagii baa rafanahaya asagii baa biilkii usoo hoynahaya asagaa shaqadii loo dira ayadii xaggee lagu ogaaday waqarna fii buyuutikunna ilaahay gabdhuhu guryahooda ha ku nagaadeen gaaladu waxay yidhaahdeen in la yidhahdo gabdhaha guryaha ku nagaada waa mujtamacii bar ka mid ah oo la macno tiray wey oo maxaa rabtaan waxaan rabnaa in ayaguna guryaha ka soo baxaan ragguna ay ka soo baxaan
xafiisyada iyo madusaaradaha iyo meel walbana isla wareegaan sidoo u shaqeynahay ninku ayadan u shaqeyso oo guriga u reebteen waxaan u reebnay gabadha shaqaalaha ah oo khaadimada ah ayaa ilmihii u reebnay markaas la weydiiyay leedigu maxaa ka dheefteen waxaad ka dheefteen reer Yurub iyo reer Mareykan waxay ka dheefeen taas gabadhu subaxdii shaqo tagaysaa ninkuna subaxdii uu shaqo tagayaa ilmihii guriga looga tagay shaqaala looga tagay gabadhii shaqaalaha ahayd ilmaha ma aynan dhalin raxmad iyo naxariisna uma hayso lacag bay ku qaadataa xashiishkii bay bartay akhlaaq xumadii bay bartay daroogadii bay bartay wixii nafaqada lahaa ay cunun lahaayeen baysan siin say rabtay u qastay waxbarashadooda ka fakari mayso caafimaadkooda ka fakari mayso akhlaaqdooda ka fakari mayso lacagteeda ilaashan gurigeena ku haynaysa hadhowta labadii odag iyo habartii markay soo laabteen caawa waxay yimaadeen mid walba asagoo daalan qofo meel buu ku dhacay gurigii ma hagaagsana cunno fiican uma diyaarsana dharkii uma dhaqna gabadhii shaqaalahay wax fiican maysan qaban ilmihii midba meel buu daadsan yahay waagi dambe markuu waagu bariyana waa laga kalaha gurigaasi waa dumay markay doqoobeen labadoodii ilmuhu ilmaamaba ahaba ilmo wada gaangeystare ah oo hooyiyo aabba naxariistood aan aqoon oo hooyiyo aanba aan laba korinba ee gabar shaqaalaha la koray oo wada xoogsanahaya oo aabbiyo hooyo midna aan aqoonba suuqa galay gurigi waa siira marka islaamku laakiin marka uu leeyahay gabdhuhu guryaha ku nagaadeen ayagoo la og yahay maslaxadooda iyo xaajadooda inay u bixi karaan maxaa loo fadilay guriga inay ku nagaato hadday guriga joogto macna daro ma joogto waxay og tahay waxa ilmuhu cunayaan iyo waxa guriga looga baahan yahay ninkii hadduu yimaado guri diyaarsan ilmihii oo diyaarsan jawi degan ayuu imaan ayadu marka hadda maxaa dhaafay marka ayada waxa lagu siiyay joogida guriga ay joogto jannaba lagu siiyay nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadday haweentu shanteeda salaado tukato bisheedana ay soonto farjigeeda xumaanta ka ilaaliso zawjkeeda ay adeecdo waxa loo leeyahay waxay gelaysaa jannada irdaheeda miday doonto bay ka gelaysaa sideedda irdood ee jannada miday doonto ka gelaysaa ayadoo marka gurigeedii joogto cunadeedii karsanayso jikadeedii ku jirta oo tinteedii firanayso dharkeedii nadiifsanayso isqurxinayso cilaamanaysa ayaa janno lagu siiyay bal sida islaamku u sharfay fiiri sida u qiimeeyo fiiri adiga haddaa shaqaysid waxa aad leedahay ka shaqaynaysid oo aruurinaysid ilmahaaga iyo naftaada u weeyso ma ninkii baa la saarayba culayska asaga dusha laga saaro adigana bedelkiisa guriga ilmaha tarabiye waxay soo saartay ilmo xufaada waxay soo saartay ilmo akhlaaq leh waxay soo saartay ilmo nadaafad leh waxay soo saartay ilmo darisku ka nabad galeen waxay soo saartay ilmo jadwalka waxbarashadu u nadaamsan yahay xilliga ay wax cunayaan iyo xilliga ay seexanayaan iyo xilliga ay soo jeedayaan ayada soo saartay maxaa yeelay waa hooyadooda way u dhaqnanaysaa ninba degna magaalo aan garanayo muallim buu u keenaa mar walba ilmaha muallim kasto u keeno si fiican wax uma baro waa ka cayriyaan mid kale oo quraanka aad u yaqaan buu keenaa natiijo male maantii dambu xaaskiisa u yeero wuxuu yiri adigu soo quraanka ma taqaanid sida muallimku u yaqaan soo ma taqaan bayt mushaarka aan siiya muallimka adaan ku siinaya adigu ilmaha waa u dhaqnanaysa laakiin muallimku u dhaqnan maayo adigu waa dhashay si gooniya uga fakaraysa mushaarkan ku siinaya bar waa yahay in yarba ilmihi waxay noqdeen xufaad tartanada markay galaan meelaha ugu sareeya ka galay xayal ayadu quraanka way taqaan ilmaheedii bayna quraanki baraysa miyay khiyaanaysa ma looga baqahayo ma looga baqahay mana ka caajisayso gurigeedii bay joogtaa ilmihii bay quraanki barin subhana ilaahi bari subhana wa ta'ala mushaarki muallimka uu siinayaan ayadii uu bedelosi balu fiirso gaaladu waxay yiraahdeen
waxay yiraahdeen ninka mas'uul baa laga dhigay طيب mas'uul baa laga dhigay haddii mas'uul laga dhigay waxa la siiyay awood iyo power markaasuu wuxuu noqday seef gabadha la dul saaray ma bixi kartiyaa ma istaagi kartiyaa ma u tagi kartid walaasha amarkayga qaado ma yeeli kartid ma yeeli kartid waxaas waa dulmi cadaadar yiraahdo طيب maxaa rabtaa ayada in la siiyo amarka miyaa rabtaa ma waxaa rabnaa qof walba xor inuu iska ahaado oo gurigaani haddii laba madaxweyne leeyahay mashaqaynahaya jikada haddii laba qof tiraahdo annaga cunada isla walaaqayna maba shaqayn kartee see guri dhan oo dhisan oo mas'uuliyad leh see buu u shaqaynahayaa haddaan qof mas'uul ah oo arrinta intuu fiiriyo oo la tashado hooyada go'aanka qaadanaya uusan jirin see u shaqaynaya ninka in mas'uul laga dhiga raxmad ilaahay weey waxay u tahay bedelkeeda mas'uuliyad baa la saaray culus oo nafaqadii iyo wixii ah asagana waxa lagu sharfay mas'uuliyadda inuu qaado wuxuu u qiirariyoonayaa gabadhiisa iyo xaaskiisa waa u qiirariyoonaya damiirkiisu ma aqbalayo in la xumeeyo laakiin ayagu waxay yiraahdeen cagsi weey gabdhaheeni markay kaxeeyeen oo Yurub iyo Mareykan geeyeen xoogaaga shilimaadka ah oo cayrta ahaa hooyada ilmaha loogu dhiibaya asagii wuxuu noqday qori meel taagan lacagtii intay aruurisay wax yar ilmaha ka siisay intii kale waxay tiri ilmahay walaalahay baan ku soo dhoofinaya aabahay baan ku soo dhoofin hooyaday baan ku soo dhoofin walaashay baan ku soo dhoofin dadkay u dacwanahay na walaalahay ilmaha waa wada dhalna lacagtana waa la wada siiyay anna waxa dad baa iga baahan u dacwoonaya anna qayb si waraalaha adiga lagu ma siini haddaan la isiini haddaba wax way guriga anaa mas'uulka amarkay waa ina qaadato waraalaha amarka mana bisha bas asbuucu ku dumaya gurigiiba subaxda dambe markii la isku dhaco la isku dhacay waxay tiri mar dambe hadaa kelimo tiraahdid bacda Allah ku guranaysa telefoon baan wacahaya oo lagu xirayo waa baxaysa nin baa habeen soo wacay muallin quraan buu ahaa naagta uu qabo ilmaha saga quraanka u baray laakiin ilmaha nin kale u dhashay markii dambe uu guursaday labada ilmood oo ay dhasho nin kale u dhashay oo uu la joogo xafaad buu ka dhigay muddo dheer buu la noolaa habeen buu soo wacay asagoo oranaya waxaan taaganahay meel baraf ah waqti dambana weeye gurigiiba iga soo saartay dharkayna calaladaan ku gurtay hoos baan taaganahay qof meel aan u hoydana male waxaan ka codsaday inay caawa idayso oo subaxdii aan ka guuro maday tiri hal daqiiqo wallahi baad joogahay waa degaysa labada ilmood ay dhashana xufaad buu uga dhigay markuu hoos u degay masa telefoon inta u dirtay waxay tiri kitaaba ku yaala guriga kitaaba hadda hadaadan dajin oo dhulka aadan u dajin telefoon baan diraya markaas wuxuu ka codsaday kitaabuhu inay iska yaalaan maadaama baraf ay tahay oo ay ka qoyahayaan wallahi baan yeelin bay tiri waxaasi dalkeena ma ka dhaceen kama dhaceen inay xaggaas ka dhacdo waa sida iyagu ay rabaan gaaladu weey waxba inaan la isku reeban oo ixtiraam u jirin oo qadarin una jirin oo xuquuqda saa loogu tunto waa sida ay rabaan xurriya gabadha xuquuqdeeda xuquuqul mar'a goormee gabadha xuquuq u yeeshay soo taa duugi jirteen idinkoo gaalo ah soo taa dhaxli jirteen sida xoolaha u dhaxashaan soo taa badeeca ka dhigteen annaga islaamka ah ilaahayna siiyo karaameynada ma xuquuq baa gabar u haysaan hal xabba uma hayaan beentood weey xeerka qoysku hadda la wado oo la faafinayo lala ordahayo maalin walba leeyahay xeerka hal sharciyeeyo muxuu xambaarsan yahay gabadhu 18 sano hadaysan gaarin lama guursan karo ninkii guursadana waa kufsi 15 sano oo xarigahana ugu yar laakiin 18 sano ka hor maxaa banaan haday raali tahay way tuman kartaa weey saas weey u fiirso laakiin guur mamnuuc xuquuqdeeda la raadinaya saas weey ugu had xuquuqda ay raadinayaan waa midaas nin baa tusaale ka bixiyay waxay xorriyada u yaqaanaan gaaladu nin reebaadiyaha ari la joogay meeshuna way waraabo badan bay lahayd arigiiba maqribkii soo xareeyay oo buu ku wareejiyay xeradii markuu ku xareeyana afku wuxuu ka saaray dhacantii afkiibu ka daboolay
markuu halkaa istuuray oo seexday baa waraabihii yimid waraabihii xeradii uu ku wareega meel uu ka galu waay waraabihii afku jug isku siiyo wuxuu yiri xoolaha saa in loo xareeyo oo lagu wareejiyo oo meel ay ka baxaan loo diido waa xorriyadii xoolaha lagu ciyaaray aan ku dhawaaqna mudaaharaad ariga xorriyadiisa loo soo celiyaa dhahan hal mar baa waraabi wuxuu yiri arigu xorriyad ma haysto meel cadaabuhu ku jira xorriyadiisa loo soo celiyo arigi run intuu mooday ayuu ooda jabsado iyo xorriyad baan rabnaa arigi wuxuu soo jeexay oodii buu soo jeexay markuu oodii soo jeexay buu waraabihii ordo wuxuu yiri soo carara xorriyadu meel jirta idin geynayaan waraabihii waa ordahaya arigina waa ka daba cararaya xorriyad baa raadinaya buu leeyahay ninkii waa soo kacay ariga lahaa arigii uu ka daba dhawaaqo marada ka daba tuuro usha ka daba tuuro war waxa daba ordaysaani waa waraabe war xorriyad idama hayo war gurigiisba war ka jooga wax maqlahayaba bale duurka markii la isla tagay buu waraabihii arigii intuu isweer ka qabto baabaha ka dhigay arigii markaasii waraabo xorriyadu matana وحريته ما مدانا waxa ay rabaan ma taqaana xero islaam baad ku jirtaa intay dhawaaqaan xorriyad ku yaan banaanka ku saaraan in halka dariiqa kugu eriyoodaan birba wax ka celiyeen adeey bal fiirso gabadha marka muslimada maxaa la gudboon hadda waxa la helay gabdhaha aalaad lagu fasaadiyo ayadoo gurigeedii joogto xijaabkeedii qabto quraankeedii dhiganaysa ayaa guriga loogu soo galay waxa guriga ugu soo galay oo fitneynahayo balaayeynahayo halaajinahayaa qasab looguma soo galin ayada lacagteeda ku soo iibsatay lacagteeda ku doonato bal qof ka waran mididii lagu gowrici lahaa soo iibsanahay telefishonkii baa la soo xiray dishkii baa la soo saar youtube-kii baa la soo dhig loo furay facebookii aalad kaste wixii baa loo rakibay quraanka markay ka timid xagga iska fiirisay saasay u taataabat saa waxa soo booday sun iyo qashin iyo qurun oo dhan haday maantii hore xishoodku ku jiray saasay indhaha leedahay maalmaha dambe laba indhood oo dheer saasay ugu qaban maba ka milicsanaysa soo jeed wax alla wixii xumaanaha caadi la noqonahay shala markii hore maynan fiirsan karin indhaha way ka leexinaysa laakiin maanta waa caadi waxa la soo dhigay wiilal yar yar iyo dhalinyaro iyo balaayo iswata oo ayba taqaanaba jaamacadaha iyo iskuulada dhigta mid heesahaya iyo mid neekinahaya iyo mid erayo xun soo qorahaya iyo gabadh is soo cadaysay iyo mid ma taqaana is soo dhigtay markaas waxa la leeyahay adigu caanba ma tiide ma is soo caan bixisid waxaan TikTok la leeyahay oo la isticmaalo hadda 5 daqiiqo ayada dhan socotaa Soomaa wax 5 daqiiqo la socdo way qosol iyo shactiro weey waxa la leeyahay waxa isku soo caan bixiya gabdhaha waa meesha ku soo caan bixi lahayd wiilashu ku soo caan bixi lahaayeen hees baa la saaran waa qofkii baa isruuxa haya heesna waa loo saaray gabadhii dugsiga iyo khayrkay wanaaga lagu ogaa waaba tan niikinaysa oo heesta u daaran tahay waaba tan ba isoo caan bixinayso adduunyada daafaheeda meel walba laga daawanayo qof isku soo caan bixinaya ilaahay caasintiisa bal ka war awna ka baqahay dhulkuna la go'o bal fiirso in la arkaan rabaa adduunka la iga bartaan rabaa inaan soo caan baxaan rabaa ma waxa isku soo caan bixinaysa ilaahaygi ku abuuray cisyaankiisa iyo caasintiisa miyaad ku soo caan baxaysa oo ku raadsanaysa sumcad ilaahay waxa laga yaabaa quraanka taqaan ilaahay inuu ka masaxo tawfiiqda iyo hidaayada ilaahay ka qaado adduunyadii oo dhan baa fitnaynaysa qof kasta oo ku daawada wuu dambaabay adiguna dambigu dambaabay qayb baa ku leedahay maxaa bulshada u jideynaysa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha xumaan qofkii jideeya dambigeedu leeyahay cid alla cidii uga dayato ku amal fashana dambigeedu leeyahay bal fiirso hal barba is soo dhigtay ado isruuxaysi imisa gabdhood baa fitnaysa oo dhaqanka noocaas aad barta imisa wiil baa kugu fitnoobay oo ku daawado ku arkay
gabalku markuu dhacay ilaa saaka waagu uu bariyo lagu arkahayay lacnad ilaahay baa kugu dhacaysay musiiba kugu socotay dambi baa lagu qorahayay waabaana samaysay ogow dhowr sano soconaya sawirkaas ama sanawaadiyo saas uu wareegahaya inta awsan tub ila rabbika ilaahaygi ku khalqay u tabadkeen oo waxa noocaas ilaahay uga baq khatar baad ku jirtaa saa hadaa ku dhimatid dambigaagu waa socon inta kugu fidnoodo si faafisana dambigooda waa u sii socon adigana qof kasto dhaxlo ka dhaxla iyo qofka ka sii dhaxla dambi baa u soconay Soomaadan arag dad maanta dhageysanahaya heesihii dadkii dhintay 30 sano ka hor maxaa u soconay iyo dad dhageysanaya 30 sano ka hor quraanka taqaano dhimatay oo quraankoodu daaran yahay labadoodii dhulkay ka hooseeyaan lafahoodina waa baaliyoobeen qofna waxa u soconaya habeen iyo maalin dambi baa u soconay idaacadihi buu uga soconaya mobiladii buu uga soconaya meel kasto uga soconaya hadii la yiraahdo hal la amaano waxa lagu amaanaya gabadhaasi waxay ahayd gabar heesa ah oo fanaanad ah oo waqtigeedii qatar ahayd bay ahayd baa lagu amaanay cadaabki ilaahayna way ku jiseysat oo ku mutaysat bal u fiirso masaasaa doonaysaa inaad ku dhimatid oo ay kugu timaado oo xumaan laga dhaxlo maanta waxa laga rabaa hadaa halkaan fadhidid mobilkaaga heesaha ku jira ilaahay ugu dhawow oo kulli tirtir iridaa ka bixinina qofkii hees ugu jirto asagay rabbi baa isla og raqam sirri baa kugu xiran anagu ma ogin u fiirso adiga ilaahay baa isla og iridaa ka bixin galabtay adoo heesta kuugu jirta mobilkaaga tirtirina ka bixin maxaa u tirtiraysaa irdaa'an li rabbika ilaahaygi ku sharfa ina raali gelisid ilaahaygi ku nimceey ina raali gelisid darteed u tirtir ilaahayna uga toobadkeen dadkii aad fasaadisay u sheeg ina ilaahay u toobadkeentay maxay gaaladu ku jeclaysteen inay dumarka target ka dhigtaan waxay ku jeclaysteen inay quluubtoodu si sahal u leexanayso ogiin ducafada ayaa target laga dhigtaa qodobka kale oo muhiimka waxa weeye gabdhuhu inay ogaadaan diinka ilaahay oo aad akhristay gorba kugu dambeysay quraan akhristay gorba kugu dambeysay adkaara akhrisid gorba kugu dambeysay salaad sunnah aad tukatid gorba kugu dambeysay isweydii adigu naftaada la og ilaahay xiriir la yeelo oo ilaahay kitaabka uu ku soo dajiyay oo dumarka uu ku sharfay iyo ragga intaba jaahilada ka noqon xuquuqda aan leedahay ilaahay uu ku siiyay quraanka kugu taala baro waa kasto ku bariya hal bagna Allah ka dhiga quraanka akhri salaad sunnah tuko